بسم الله الرحمن الرحيم. أو أحكبر إنه فرق يقول حياة customer needs and customer wants. وعندي كرنو باهية معاميشة إيرابيتان كمعاميشة. هدان كور مرنو needs أما باهي سيدا أد مقعبا كاركتان وعندي كرنا ووح وليبا أو مهم أما أساسي جريتان كقفكا يبتقبكيسا سيدا راشينكا بيها عافيماتكا هويغا يوحي لها المال. مركنا أنقحنو معناها customer needs أما باهيدا معاميشة waxaan ku qeexi karnaa in ay tahay walxaha asaasiga u ah badeecadaha ama adeegyada kala duwan. walxahaas ma ahan wax laga gorgortami karo ama laga tanaasuli karo. tusaale waxaan u qaadan karnaa in macaamiisha rabta inay safar dheer galaan waxay u baahan yihiin helidda laptop leh battery muddo dheer shaqayn kara oo qofka shaqadiisa ku qabsan karo asaga oo aanan ka walwal qabin inuu laptopka damo tamar la'aan awoodi. haddaba sifadaas asaas ayay u tahay si loo buuxiyo baahida uu macmiilka qabo. halka wantis ay ka tahay rabitaanka walxaha qurxiya nolosha oo haddii la waayana uu qofka noolaan karo la'aantood. jiritaanka walxahaasna waxaa saameeya mujtamaca aan ku dhex noolnahay, sidoo kalena dhaqanka iyo rabitaanka shakhsiga. tusaale waxaan u qaadan karnaa inuu qofka jeclaan karo inuu xirto dhar ay soo saaraan shirkadaha la yaqaano ama brandiga, ama inuu qaato mobilkii u dambeeyay sanad waliba. haddaba customer wants ama rabitaanka macmiilka waxaan ku qeexi karnaa inay tahay wax dhaafsiisan baahida asaasiga ee macmiilka, waana sida ay jeclaan lahaayeen inay alaabta ama adeega ay markaas rabaan inay noqoto. ogowna rabitaanka uma ahan asaasi jiritaanka qofka ee waa wax waliba oo sare u qaadi kara ama ha qabtiri kara qanacsanaanta macmiilka. tusaale, mobilka ujeedkiisa waa inaad qof kula xiriirtaa, shaqadaasna waxaad ku qabsan kartaa xitaa mobilada yaryar. balse hadda waxa uu noqonayaa rabitaan uu qofka qabo inuu haysto iPhone ama Samsung iyo wixii la halmaala oo mobilada casriga ah, waayo waxa uu arkaa marka uu shirkadaha mobilada ay soo saaraan uu qaato in naftiisa ay ku faraxsanaanayso, fikirka ay ka haystaan dadkana uu noqonayo mid fiican. markana aan aragno sababaha ka dhigay muhiimka in la kala saaro baahiyaha iyo rabitaanka, waxaana sababaha ka mid ah: 1. inta aysan shirkadda hormarin adeeg ama badeecad waa inay xisaabta ku darsataa baahiyaha iyo rabitaanka macaamiisha ay rabaan inay gataan alaabtan yaa waayo waa inaad taqaanaa walxaha qolo waliba muhiimka u ah oo ay danaynayaan inay ka helaan adeegan ama alaabtan si aad alaab ama adeeg ku habboon aad u hormarisid. 2. marka la samaynayo suuqgeynta adeegyada iyo badeecadaha waa inay ka turjumi karaan inay haqabtirayso ka adeeg ahaan ama badeecad ahaan baahida iyo rabitaanka macaamiisha, waayo sidii aan soo aragnay mid waliba waxbay danaynayaan. 3. waxaan jaangoyn karnaa qiimaha la siinayo adeega ama badeecadan, waayo marka aad taqaanid dadka aad rabtid inay alaabtan gataan waa inaad taqaanaa ma waxay u gadanayaan baahi mise rabitaan mise isku dhaf. sidaasna waa inaad qiimaha ku jaangoysaa. haddii aysan ku kala saarnayna ma go'aamin kartid qiimaha saxda ah ee la gadi karo badeecadan ama adeegan. gunaanad inaan fahanno farqiga u dhexeeya baahiyada iyo rabitaanka si guud, gaar ahaana baahiyaha iyo rabitaanka macaamiisha, waxa ay muhiim noogu tahay si aan u gaari karno go'aamada la xiriira qoondaynta kheyraadka iyo qarashaadka ka shakhsi ahaan iyo ka shirkad ahaan intaba. sidoo kale shirkadaha waxay awood u yeelan karaan inay hantaan macaamiil sarana u qaadi karaan faa'iidada ay soo saarayaan, waayo qolo waliba waxaa la haqabtiray wixii ay baadi goobayeen, ha ahaato mid ku salaysan baahi ama rabitaan ama isku dhaf. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما تسندين وإنه مركلات ربيدمو.